kusoo dhawaada Kacab Media haddii aad nagu cusub tahay fadlan waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe saarto like-na aad taabato share gareyso asxaabtaada aad la wadaagto commentina aad noo reebto waa maasan tahay soo dhawaada asxaabta haweeney YouTuber oo naafo ah ayaa ka yaabsatay dunida oo dhan haddaba waa tuma haweeneydaasi Sarah Tolby waxa ay dhalatay 23 September 1982 waxayna ku dhalatay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka haweeneydan ma lahan wax gacmo ah taasi beddelkeeda Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu siiyay awoodo kale iyo mucjisooyin kale oo ay la soo hor istaagtay bulshada haddaba tani waxa ay muujinaysaa in dadka naafada ay wax qabsan karaan haweeneydan ayaa waxa ay soo bandhigtay muuqaallo ay ku soo bandhigayso baraheeda bulshada sida TikTok, Facebook, Twitter iyo YouTube waxaanu ku xiran boqolaal ruux kuwaasi oo ay soo gudbiso sheekooyin aad u xiiso badan jadwalka nolosheeda maalmaha iyo sidoo kale muuqaallo farshaxanimo oo ay ku sameeyso lugaheeda gabadheeda oo ay aad u jeceshahay ayaa inta badan waxay u muujisaa dareen hooyanimo iyadoo tani ay ka turjumayso in dadka naafada wax kasto ay qabsan karaan haweeneyda sida aan sheegay ma lahan wax gacmo iyadoo hawl kasta ay qabanayso oo guriga u taalo ay ku qabanayso lugaheeda oo kaliya lugaheeda ayay cuntada ku karinaysaa wax kasta oo nolol maalmeedka gurigeeda ku saabsan lugaheeda ayay ku sameynaysaa Sarah waxay ka mid tahay dadka aan lixaadkooda u dhameen isla markaana soo bandhiga waxyaabaha cajiibka ah waxaana muuqanaya in baraha bulshada ay ku soo bandhigayso waxyaabo cajiib ah oo dadka dhameystiran xataa aysan sameyn karin iyadoo intooda badan ay lugaheeda wax kasta ay ku qabanayso wixii gacmaha lagu qaban lahaa lugaheeda ay ku qabanayso muhiimadda ugu weyn ee sheekadan aan u soo qaadanay waxa ay tahay in bulshadeena Soomaaliyeed gaar ahaan dadka naafada aan ku baraarujino in ay wax qabsan karaan maadaama haweeneydan tusaale u tahay iyadoo labada gacan ay ka maqan yihiin in wax kasta ay ku qabanayso lugaheeda isla markaana ay isku kalsoon tahay sidaas oo kale ayaa lagu baahan yahay dadka aan lixaadkooda dhameyn ee Soomaaliyeed isla markaana ay ku daysadaan haweeneydan